dowlad goboleedka Puntland ayaa ku baaqay in beesha caalamku ay ka qayb gasho shirka dhuusamreeb ee looga tashanayo doorashooyinka Soomaaliya ee soo socda. Bayaan ka soo baxay madaxtooyada Puntland ayaa lagu sheegay in dowlad goboleedka Puntland aysan kalsooni buuxda ku qabin madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo. Sidaa daraadeedna loo baahan yahay in beesha caalamku ay markhaati iyo goobjoogayaal ka noqoto waxa lagu heshiiyay iyo sidii loo fulin lahaa. War-saxaafadeedka ka soo baxay dowlad goboleedka Puntland oo 2 ilaa 3 warqadood ahaa ayaa waxa ku xusnaa in aanay dowlad goboleedka Puntland ku kalsoonayn shir kaliya uu ka qayb galayo Maxamed Cabdilaahi Farmaajo oo aysan kala qayb galahayn wufuudda caalamka iyo sidoo kale ra'iisul wasaare qayb ka noqda. Waxay Puntland sheegtay inay shirka ka qayb galayso balse madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayay ugu baaqday inuu soo magacaabo ra'iisul wasaare qayb ka noqda fulinta heshiisyada dhamaystirka doorashooyinka. Bismillah, alxamdulillah, salaatu wasalaamu ala rasuulillah. Halkan rabaa inaan kula wadaagno ummadda Soomaaliyeed iyo dhammaan banayaasha arrimaha Soomaaliyaba shirkii saad ogtihiin dhuusamareeb 2 oo looga ballamay dhuusamareeb 3 iyo xaaladihiisa. Sidaad la socotaan dhuusamareeb 2 waxaa lagu heshiiyey in bisha August 15keeda la isugu yimaado magaalada dhuusamareeb 3 si looga heshiiyo hanaan doorasho oo dalku galo. madaxdii Soomaaliyeed ee ka soo qayb gashay dhuusamareeb 2 ballantu waxay ahayd 15 bisha August in la isugu yimaado magaalada dhuusamareeb. waxaa ka soo qayb galay 15 bisha August oo ballankii ilaa haddana soo gaaray madaxweynaha koonfur galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed, madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare, gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Firish, waxaan welina soo gaarin oo aan shirka ka soo qayb gelin madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani, madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan oo runtii aan cududaar u samaynayno ama cududaar leh oo xanuunsan intaan ognahay. Allah caafiyaan leenahay. dhammaan madaxda u mahadcelinaynaa. madaxdii soo hormartay waqtigii ku timid soo ilaalisay waqtigana si gaar ah ugu mahadcelinaynaa. sorry waxaa yimid madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya oo waqtigii ku yimid ballanta sidii ay ahayd. waa mahadcelinaynaa. waxaan rabnaa halkan inaan ka cadayno inaan walaalaha maqan sugayno sidii aan diyaar ugu nahay. ballantuba ay ahayd oo iyaguba ay dhinacooda ballanta ka qabteen oon leenahay walaalayaal shirka soo gaara noo imaada wixii ama hawlihii loo arko inay mudan yihiin ama wax ay ka jiraan gogashii iyo goobtii loogu talagalay in looga wada hadlo looga heshiiyo way taallaa oo ballankeeda wada qabanay oo ballankeeda wada qabsanay. sidaa darteed wararkii hawada la isu mariyo iyo fariimo la isu gudbiyo xaaladda maanta Soomaaliya ku jirto iyo waqtiga la joogo kuma aadana waqtigeedina ma ahan. waxaan isleenahay xilli fariimaha hawada la isu mariyo ma joogto. waa la kala duwanaan karaa, waa jiri karaan waxyaabo aan lagu wada qanacsanayn, balse goobteedii iyo gogasheedii iyo ballankeedii baan joognaa oo ay tahay in loo wada hadlo oo lagu heshiiyo. sidaa darteed waxaan ka codsanaynaa walaalaha sharafta leh saaxiibaday inay yimaadaan gogasha. waqtiga ummadda Soomaaliyeed maanta ku jirto xaaladda dalku ku jiro hanka weyn oo Soomaaliya ka leedahay rajada weyn oo ku xiran oo ah doorashada dalku galayo
in laga heshiiyo laga wada hadlo uma baahnaan is leeyahay inaan kadib dhacno iyo waqtiga uu ku dhumo wax aan ku aadanayn maslaxada sidaa darteed halka aan isugu nimaadno sidii gogoshii iyo ballankuba ahaa waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed qaab doorasho way ka heshii jirtay waana ka heshii karnaa ballan iyo isfaham ku filanna waa soo gaarnay hadda ka hor iyadoo aan cidina nagu dhex jirin ama aan cidina ay Soomaali isfahamsiinayn madaxda Soomaaliyeed waa iska fahmeen Dhuusamareeb 1 iyo Dhuusamareeb 2 waa lagu soo heshiiyey tirina waa lagu heshii karaa iyadaana dabaanada soo ummadda Soomaaliyeed waxaan ku kalsoonahay ka soo baxa Dhuusamareeb 3 inay fulayaan shacabka Soomaaliyeedna ay ku kalsoonaa karaan talooyinka iyo go'aamada ka soo baxa waxaan leenahay sidaas walaalahay intaas harmaan uga baxo runtii waxaan rabaa inaan cadeeyo inaan wada xiriirno rajo fiican aan ka qabno inaan isugu nimaadno si taladuba ay ahayd ergada nabadeynta labada beelood ee walaalaha ee dhawaan colaadu ku dhexmartay deegaano ka tirsan magaalada Buuhoodle ayaa waxaa si weyn loogu soo dhaweeyay degmada Ceegaag socdaalka ergadu waxa uu qayb ka ahaa socdaalo nabadeed ay ku marayeen deegaano kala duwan qaybaha bulshada ee ku nool degmada Ceegaag ayaa si weyn u soo dhaweeyay ergada nabadeynta waxayna kulan la qaateen bulshooyinka ku dhaqan degmada Ceegaag garaad Jaamac garaad Ismaaciil garaad Cabdirasaaq garaad Soofe Durraan garaad Jaamac garaad Cali iyo izimada dhaqanka iyo waxgaradka labada beelood ayaa ka hadlay waxayna bogaadiyeen inay labada beelood ilaaliyaan nabadda iyo xasiloonida deegaanada garaadkii wada jira wuxuu gaaraa dayaxa dangaara ninkii watana gabaad ma noqon kara bulshada gaadma iska jira gadii kalena waa ninkii gurgurshaaga wacan guulaheenu siiyay gooyaha hamaha ka sura isagoo guudkiisa iyo gogiisu cadays yahay sidee loo gooshaya war calaadu waa awr muruxsan maynu qararnaa waa maya Soomaa nabadaasi dheel maaha gogalkaga kac maaha waa nabad rismiya waa nabad sidii aynu isku ahaan jiray ay ku soo celisa waa nabad labadii isu abti ahaa iyo labadii maabti ahaa iyo labadii habra wadaagaha iyo labadii saaxiibaha waa nabad la rabo inay sideedii u dhex marto nabadaas oo maydun qaadan khayr allah idisi doonayaan ilaahay baa iswaafajinaya waxa noo muuqatay labadan reer inay wanaag doonayeen waxa noo muuqatay heshiisku inuu ka dhab yahay ilaahay waxaan uga rajeeynaa Allah hagaajiyo waxay leenahay dardaarankaygu waxa weeyaan wixii halka aad ku heshiiseen ee qiimaha badnaa ee aan ciidan ku dhexgelin waa la isugu keenay laakiin idinka heshiiyey waxay leenahay raado reer dib looma qaado arinta halka ka dhacday heshiiskaas ha socdo sulxiga iyo heshiiska iyo nabadeyntu diintu mowqif fiican bay ka leedahay oo ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu leeyahay fattaqullaha wa aslihuu daata baynakum ilaahay ka baqa oo wixii dhexdiina heshiya oo meel kale alla wuxuu ku tilmaamay haddii ay islaysaan laba qolo islaayaan hala dhex galo hal heshiisiyo waa in daa'ifataan aad iyo aad baad u mahadsan tihiin sida aad u soo shirteen sida aad u milgaysan tihiin sida aad nabadda u doonaysaan ilaahay idin barakeeyo aan idin idhi go'aamada aynu qaadanay meeshaynu ku qaadanay waa beedkii ilaahay waa arkaysaan ilaalinteeda oo cid walba abaa inoo taalle war kale inooma yaallo waa cusub baa inoo baryey waagaa cusub aan ilaashanno ummad yahay dhulbaanto dhammow aan ilaashanno hagar yahayaagu yaynaan carabka la dhicin innaga lafteennu qaybaynu ka ahayn ama dhibta ama dheefta oo dhaba waxaa kaloo ii raaca Marwo Degan Miiraash oo ah hooyo haysata 4 caruur ah ayaa muddo ku dhow bil waxay ku xidhan tahay magaalada Hargeysa xadhigeeda ayaa yimi kadib markii ay dhawaan baraha bulshada ku baahisay sawir ay xidhan tahay calanka Soomaaliya muddadaas ay xidhneed ayaan la horkeenin wax maxkamada waxaana ehelkooda oo la xidhiidhay ii sheegeen inaan inatooda ilaa hadda aan la keenin wax maxkamada isla markaana maalin kasta ay ka dhur sugayaan in cadaalad la mariyo haddaba Marwo Degan Miiraash oo ku jirta xabsiga Koodbuur ee magaalada Hargeysa ayaan khadka telefoonka ku helay waxaana ka waraystay xaaladeeda iyo waliba sidoo kale waxyaabihii ay kala kulantay jeelka muddadii ay xidhneyd intii aad xidhneyd qoyskaagu ma ku soo booqdeen iyo waliba sidoo kale looyaradii ku doodayay
ها لا ما أقوليني يسوق لان ده حمر وصح لي اللي يجوزها maxkamadda iyo maxay ku yiraahdeen maxaad kala kulantay والله محكمة مع ويريد مر والبا كده واعي ودرجة على ساعة ما قاعد يقولون tacadiyada lagu geystay ama dhibaatooyinka sheeganaysa maxaa kamid ah والله waxaan xirnaa xaga xilliga fadhiyo والله tacadiyada ma geystay waa gacan ugu badan waa gacan weeyaan waxa ugu badan waa ay waxyaabaha qaar lagu hadlayo faqash yani waxyaabaha fahmeen والله ma garan karo markaa maadaama Soomaaliland iyo Soomaaliya ay yihiin laba dal oo kala go'ay arintoodana aad ka war hayso adigu ma aaminsan tahay inaad qalad gashay oo arintaas sameysay ay qalad kugu tahay marka dhan xaggooda haddaan u raaco sida ay wadaan ama sida ay u fikrayaan oo kale ama ay hadda igu eedeynayaan oo ah inaan waayahay adiga maxaa kugu kalifay inaad calanka xidhato والله ما بنت لهاي واحد بعطاها تاجي من الساعة واحد يقولوا أركي مكتوب على الصوماليين إحنا مسنين الصومالي ما هي يسوي بيروح حدود النقط سليم في جوتي النقط سليم ما هو جرنا اللي بعثوه في الصومالي اللي يقول marwo degan oo ilaa hadda aan la horkeenin wax maxkamada ayaa waxay haddana ciidanka ka tirsanaysaa tacadiye fara badan oo ay u geysteen taliyaha ciidamada asluubka Soomaaliyeed ayaa shaqadii ka joojiyay taliyihii xabsiga dhexe Camarkaasi oo dhawaan uu weerar ka dhacay gudaha xabsigaasi gaashaanle sare Cabdiqani Maxamed Qalaf afhayeenka ciidamada booliska Soomaaliyeed ayaa amuurtaasi ka warbixiyay shirkina jaraa'id galabta wuxuu ku saabsan yahay maadaama xabsiga ay ka dhacday dhacdo taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed wuxuu shaqadii ka joojiyay gaashaanle sare aadan xuseen kulmiye oo ahaa taliyaha xabsiga isla markaas wuxuu taliyuhu u magacaabay si ku meel gaar ah sareeye guuto daahir cabdulla raage inuu noqdo kusimaha taliyaha xabsiga waxaa socda baaritaan ballaaran oo laga wado xabsiga dhexe dhacdadii ka dhacday ilaahay idankii markay soo gabagabowdana waa inala wadaagi doonaa saacado ka hor xilligan oo kale halkan waxaa ka socotay rasaas jawiguna wuxuu ahaa mid cakiran howlgal saacado qaatay kadib ayay u suura gashay ciidamada ammaanka inay soo afjaraan weerar rag hubeysan oo ka tirsan xarakada al-shabaab ay ku soo qaadeen hoteelka Elite ee magaalada Muqdisho qasaare kala duwan ayaana ka dhashay waxaa sidoo kale ka dhashay burbur hantiyadeed oo soo gaaray hoteelka maamulka hoteelka ayaa saacado kadib weerarka waxa ay bilaabeen inay dib u dayactiraan hoteelka gaar ahaan meelihii uu kaga burburay weerarkii xalay ka dhacay gudaha hoteelka Elite ee magaalada Muqdisho waxaa socda olole nadaafadeed oo isugu jira dayactir iyo in laga aruuriyo halkan waxyaabihii ka dhashay weerarkii xalay gudoomiyaha ururka haweenka ee gobolka Banaadir Jawaahir Baarqab oo halkan aan kula kulmay waxa ay iiga waramaysaa ololaha nadaafadeed ee halkan ay ka bilaabeen hoteelkan waxa dhisay xildhibaan qaran dhalinyaro ah bilicda magaaladan wax weyn ka bedelay waana sababta xilligan nagu kalifayso inaan ka qayb qaadano dib u habeyntiisa iyo inaan ka qayb qaadano hoteelkan inuu bilicdiisa soo ceshado weerarkan oo ay al-shabaab ku qaadeen aroortii hore ee maanta oo isniin ah deegaanka Goofgaduud Buurey ee magaalada Baydhabo oo u jirta 30 kiiloomitir ayaa waxa uu ku bilowday gaari lagu soo buuxiyay waxyaabaha qarxa iyadoona qaraxa kadib weerar fool uu ka dhacay deegaanka al-shabaab ayaa weerarka ku qaaday saldhig ciidamada deegaankaasi ay ku lahaayeen ciidamada dawladda waxaana wararka ay sheegayaan inuu ka dhashay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo dhinacyada soo gaaray al-shabaab ayaa waxa ay sheegeen in ay weerareen saldhig ciidamada dawladda ku leeyihiin Goofgaduud Buurey isla markaana ay la wareegeen saldhigga muddo kooban iyagoona sheegay in khasaaro ay gaarsiiyeen ciidamadii meesha ay ku weerareen isgaarsiinta magaalada Baydhabo ayaa saaka galankii hore hawada laga saaray inkastoo markii dambe sideedii hore ay ku soo noqotay taliska ciidamada xooga dalka Soomaaliya ayaa warbaahinta dawladda u sheegay in ciidamada xooga saldhigoodii deegaanka Goofgaduud Buurey al-shabaab weerar ay ku soo qaadeen isla markaana iska caabiyeen sidoo kalena taliska sheegay in al-shabaab ay ka dileen tobaneeyo sida ay warka u dhigeen gudoomiyaha degmada Baydhabo Xasan Macalin Axmed Biikale oo maanta Baydhabo wariyaasha kula hadlay ayaa sheegay in weerarkaasi uu ka xun yahay isla markaana waxa uu tacsiyeeyay ehelada askartii goobta waxyeelada ka soo gaartay Goofgaduud shalay waxa weeraray qolooyinka shabaab weeraray dagaal ka dhig
markii hore muxuu qaraha la galeen way ka dhimaday lama askari haddana saak way la sheegay muxuu in gudoomiye tuulada dhamaday oo taliye saldhiga tuulada dhamaday oo way la sheegay muxuu askar kalena wardeereen meelaha hatta ciidamadii dowladda galaya leeyahay ku maqan iyo ku warsugaan wal khasaare dhawaan ayaa sidan oo kale al-shabaab waxa ay weerar ay ku qaadeen fariisimo ciidamada militariga ay ku leeyihiin deegaanka Daynuuna ee gobolka Baay halkaasi oo khasaaro kala duwan ka dhashay ilaa iminka ma jiraan saraakiisha qaybta 6aad war ay ka soo saareen dagaalka ka dhacay deegaanka Goofguduud Buuray ee gobolka Baay iyo madaxda kale ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed